siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsi ayaa maanta mar uu wareysi gaarsiinay telefishinka caalamiga Xuriyo waxa uu ka hadlay arrimo door oo ay kamid yihiin heshiiska qaatumayo xaaladda ka soo cusboonaatay wadanka Itoobiya waxaana ugu horeyn hadaladiisa kamid ahaa wallahi horta waxaan raggii ugu horeeyay soo jeediyay siyaasad ahaan in lala hadlo qaatumo wana soo dhaweeyo si wanaagsan loo wada hadlo raggii ugu horeeyay ku baaqay baan in badan waliba saxaafadda mariyo meediyaha marka runtii markii ugu dambeysay meel wanaagsan bay isla marayeen laakiin waxaan qabaa in kulita arintaas inay u taalo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi iyo gudoomiyaha qaatumo Dr. Cali Khaliif Galeed insha Allah taala ayagana runtii oo halka ay ka dhaqaaqi laadahay arintooda laakiin anigu soo dhaweeyna heshiiskooda horena waan soo dhaweynay kuwa ragga ku baaqana waan insha Allah taala sidoo kale waxa uu xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay dhameystirto heshiiska qaatumo waana kan isagoo arrimahan si ka hadlaya in arrin dhexdooda taala u tahay waxaan soo jeedinayaan aadna ugu boorinaya waliba xukuumadda Muuse Biixi inay hirgeliso qodobadii heshiiska qaatumo waan ku boorinaya runtii waana dhiirigelinaya oo si degdeg ah waliba hawshaas loo soo afjaro maxay yahay baaqaad uga diraysaa xukuumadda Muuse Biixi in heshiiska waxaan uga dirayaa runtii in heshiiskaas iyo wixii kale la mid ah ka qabiya wadanka ama sida inay xoog saarto runtii waxa kale oo soo jeedinaya in arintan tukaraq ayadana inay miisaan iyo culayskeeda ay leedahay arintaasi in iska saarto runtii xil iska saarto sidii looga gelaa wada hadal iyo heshiis miiskana la isugu iman lahaa taasaan soo jeedinaya xukuumadda Muuse Biixi insha Allah taala arintan kale heshiiskaana waxaan soo jeedinayaa inay dhameystirto wixii ka qabiya halkaas way ayada maanta mas'uuliyadii iyo midda daabkeeda haysa geesta kale waxa uu xusay xaaladaha yarshadaha ka soo cusboonayd dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ku tilmaamay mid saameyn weyn ku leh xagga dhaqaalaha dhinacyada ganacsiga isku socodka ammaanka labada wadan waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlay walaal dhinac kasta way nagu yeelanaysaa arintaas dhinacyada xagga dhaqaalaha xagga nabadgelyada xagga istiraatiijiyadahan way saameyn bay nagu yeelanaysaa waayo wixii qayrka qabo qosolka ku dhambaareen guriga jaarkaaga wuxuu yihiin baad ahaanaysa walaalka wuxuu yahay baad aduguna ahaanaysa marka waxa fiican in dadaalkeeda iyo taladeeda la balaariyo talo wanaagsan laga yeesho iyo isku duubniyo midnimo la yimaado laga fikir mustaqbalka sida lala jaan qaado isbedeladan siyaasadeed ee ka socda mandaqada lagana yeesho taladeeda waxa kale soo jeedin lahaa imka arrimaha xagga istiraatiijiyadaha imka hadii ay arrimahan isbedeladani hirgalaan arrimihii ka socday arintii ka socotay makabil matalan dibowal oo kale waxaad moodaa imka in culayskii saartay iyo horumarkii ay doonayeen in Soomaaliland ay la yeelato iyo Soomaaliyaba inay hadda imka inay u bedeshay xaggan Asmara iyo Eritrea iyo Ethiopia inay u bedeshaad moodaa taasina waxay u baahan tahay in foojigadeeda iyo maaragtay dabagalkeeda la yeesho oo maaragtay talo laga yeesho oo laga wada tashada baan leeyahay waayo maanta waxay wadaa inay dhoomiye shidaalka geyso inay ka samayso saldhig weyn oo shidaalku leeyahay oo geeska oo dhan u noqdo kayd oo geeska oo dhan laga daboolo baahida shidaal dekad ballaaran inay ka samayso waxa soo dhan waxa weeyaan adiga markaa waxaan u arkaa in ayadu maanta inagu cadaadinayaan oo ay inoo tahay un carqalad in hortaagan dekedeenu inay horumar samayso maadaama ay xagga u gudubtay oo wareegtay inaguna cadaadinayso runtii arrintan ay kala kulantay Soomaaliya iyo Djibouti way inaga markii hore Djiboutina inaga lama tashan Soomaaliya inaga lama tashan inaga toosa u heshiinay haddana waxaad moodaa ilaa hadda sanad iyo barka imka ay socodeen labada sanadood ee dhow wax horumar oo la taaban karo oo muuqda inaanay ka sameeyeen dekadii iyo isbedeladii laga doonayay inaanay ilaa hadda ka sameeyeen hadda ayadoo taasi soconayso waxaynu arkaynaa janjeersiga ay u janjeersatay siyaasadii imaaraadku xaggan Asmara iyo Itoobiya taasina waxay nagu leeyahay saameynteeda taana waxaan soo jeedinayaa xukuumadda Soomaaliya siyaasiyiinta iyo waxgaradka aqoonyahanka Soomaalida inay talo gaar ah ka yeeshaan Somaliland in talo gaar ah ka yeeshaan oo miiska soo saartaan xaaladan isbedel ee ka socota mandaqada si aanay saameyn uga yeelanin oo ay uga dugtoonaadaan Axmed Maxamed Cumar telefishinka caalamiga Xuriyo magaalada Hargeysa